عبدي سميح خليل مقلد يعني بوس ما دام صوبسي سعلا ستيل جان سايستا No, go ستيل ahead. بركي وجدا بركي درس لعبدي سميح خليل وادد أصحابه وادد ولال وادد آد وادد وقت روح بدن قاتل لكن مركو حاسو أن لقينا درس لعبدي سميح خليل waxaan ka aragnay waxa ka dhexeeya xiriir jecel ahaa haa mise maya تعالوا كويديا. waxa aniga jaanis ay weydiismaysa ii jawaab haa mise maya You know, waxa ana kuweydiisay dooran aan kusoo kuweydiisay. nacam jawaabtada rabaa markaan asigtiisii waa aragnay taada ma dhimo jaalintigana waa imaada Silent waa jawaab toosa. okay anaa ku qanacaa Thank you. challenge-ga noo buuxiya Come ayo on, guys. Come on. thank you Ila dadir dareemaya. dadir gorgor thank you brother adika dhan jawaab waa haysataa زين كمان غير قال. ma runbaa in samiixa khaliil iyo darisla cabdi mar dhow ay isguursan rabaan su-aashan ayaa dad badan isweydiiyeen xagga tiktoka facebooka kadib markii king ck uu video kasoo sameeyey darisla cabdi waxaan rumaska ah ma runbaa in labadooda isguursan rabaan ee xitaa isdiyaariyeen gurigii ay isku guursan laheen alaabtii miyay isla socdaan ma isjecel yihiin ilaa maantadan lama arag video ay labadooda isla soo sameeyeen ay dhahayaan anaga xiriir ayaa naga dhexeeya inta badan waxay soo duwaan muuqaal mise su-aalo noocaas jaceylka marka la weydiiyo mar walba waxay kusoo koobaan inay yihiin dad asxaab ah dad walaalo ah oo isla shaqeynayo laakiin maalimahan dambe ayaa baraha bulshada qabsaday in uu guurkooda soo dhow yahay ee wax dhan ay diyaarsadeen xitaa gurigii ay ku aroos geli lahaayeen hadda wiilkan su-aashan weydiinaya samiixa khaliil xagga tiktok live-ka waa arkaysa si u xishoonayso ee u jawaabi karin dad badana waxaan arkay dhahayaan gabadha markay ku jeceshahay for long ma ku fiirin karto haddii magacaada lagu soo qaadane way xishoonaysaa hadda waa arkan ragga kale markii lagu soo qaado caadi ayay iska tahay laakiin darisla cabdi markii lagu soo qaaday ayada dhan ayaa isbedeshay maxay ku tusinaysaa in labadan qof ma asxaaba mise waa jacayl oo guurkan la sheegayo ma runbaa qofkii caqli leh wuu fiirin karaa wejiguu ka akhrin karaa lawadooda waxa ka dhexeeya inay asxaabnimo ahayn walaaltinimona ay ahayn oo si dhab ah ay isku jecel yihiin midda kaleeto darisla cabdi wadamo badan ayuu tegay oo xagga afrika haddaan dhahno saa-id ma u joogi jirin inta badan qofka markuu jecel galo ma fogaado qofkuu jeclahay ayuu inuu la joogo uu ka agdhawaado uu xaaladda qofkaas ogaado uu mar walba la socdo ayuu jeclahay u fiirso Ethiopia markuu joogay waxyar wuu soo tegi jiray wadan walbuu aadaya waxyar markuu joogay wuxuu ku noqon jiray Austria laakiin Nairobi si uu soo galay muu bixin maxay ku tusinaysaa in first darisla cabdi uu jacayl ku dhacay kow labaadne in samiixa khaliili asaga jacaylkooda yahay jacayl xad dhaaf ah dumarkii intuu badan markii magaca qofka jeceliin lagu soo qaado waxyaalo sida ragga ma oo is adkeynayo oo iska dhigayo wax caadi ah ee laakiin waxaa ka arkaysaa wejigooda ayaa ka akhrinaysaa inta badanna waxay u qarinayaan ay jacaylkooda public usoo dhigin waxaa waaye dad ayaa iska jira haddii ogaadaan labadan qof inuu wax ka dhexeeyo raadinayaan fitna raadinayaan labadan qof sidii iskugu diri lahaayeen
wax walba ayay sameynayaan si labadooda qof ee dhulka ula soo galaan. U fiirso inta u badan jecel social media ma walaago. Dadkiyaa la isku daraa, dadkiyaa la kala furaa, dadkiyaa la isjeclaysiinaa. Laga yaabaa hataa labadan qof markii horeeto inay waxan isku ahayn wax iska jirin ay muuqaal isla duwi jireen, laakiin commentiga ayaa ka waalayo. Adoo waxa arkaysaa ku labisan dhar hataa ku deeqaynin. Waxa arkaysaa adoo ku labisan kabo kula ekeen. Maalmihii hore social media dadka waxa soo duuba ayaa xoog lahaa, laakiin maalimahan waxaa la arkay commenti ayaa ka xoog badan oo ku kontrolayaan maalin walba waxay ka tuurayaan gees. Hadda gabadhan waa arkaysaa wuxuu rabaa inuu si sirsir ah ooga soo saaro ani Idris Cabdi waan jeclahay, ani Idris Cabdi waan guursan rabaa. Laakiin ayada maxaa sameynaysaa way is adkeynaysaa iyo ka fakanin ayay isleedahay. Caqligeeda way leedahay. Dadka TikTok dadka sameeyaan dad waxaa jira waxa la dhahay vaar sameeyo. Dad waxaa jira si ku wadaan hogga ka tuurayaan ayagan intaas rabaan. Social media waxaa arkaysaa qof kuman oo caadi ah oo tamaam ah si loo waday dharka laga tuuray. For example waa Mama Malyun si loo waday ayaa waxay gaartay xeer madaxa laga xiro, xeer mar diinta la soo galiyo marna laga bixiyo. Qofka caqliga leh su'aalaha privacy markii la weydiiyo wuu qarsanaa. Hadda maana arag dad badan ayaa laga shakisan yahay in lamaana ayaa jira sida qurux ku dhiglay Maarish Idris Cabdi iyo Samiixa way qarsanayaan waxa ka dhaxeeya sababtoo way ogyihiin dadka waxyaalo waxaa arkaysaa qof walbo ku daawanayo waxaa la dhahaa kuma faraxsano horumarkaaga. Qof walbo ku daawanayo faankaada ma aha. Dad ayaa iska jira iska nacab. Qof arkaysaa wuxuu duwaa commentiga 5-6 qof mar qabiilkiisa qofka aad mar qofka suu u samaysan yahay alla suu u abuuray ayaa ku arkaysaa. Aan u soo noqono muuqaalkeeni labadan qof ma isguursan rabaan. Intuu badan wax kuu sheega waa helaysaa, laakiin wax ku siiya ma helaysid. Hadda haddaa imaato Nairobi meel walba waxaa maqlaysaa sheekooyin weliba saaluunayda haddaa imaato waxaa maqlaysaa way isguursan rabaan, guri ayay hagaajisanayaan, saan ayaa dhacday. Dad badan oo arkayeen alaab ayagoo isla gadanayo ayaa qof kale u sheegaya. Inta badan hadday caan tahay dhibaato badan ayay leedahay. Wax walbo rabto inaad private ka dhigato public ayuu imaanayaa. Mar badan waxaa arkaysaa laga yaabaa labadooda inay wax isla gadanayaan. Qof ayaa muuqaalka duubay oo dhahaya sax waaye in ay mar dhow isguursan rabaan.